wafdi balaaran oo hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka Puntland Injineer Cabdixakiin Cabdilaahi Xaaji Cumar Camay oo ka mid yihiin wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan labada gole ee maamulka Puntland ayaa galabta goor gaaban si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Buuhoodle. madaxweynaha yoobtigiisa ayaa lagu soo dhaweeyay duleedka bari ee magaalada Buuhoodle waxaana ku soo dhaweeyay oqaasha gobolka Cayn ururada haweenka dhalinyarada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan gobolka Cayn. madaxweynaha ayaa ka soo degay gaari khaas oo isagu la socday waxaana uu halka ka gaco madaxweynaha ayaana marmar gacan qaaday shacabka ku soo dhaweeyay magaalada tan Buuhoodle waxaana wafdiga madaxweynaha markii dambe loo soo galbiyay magaalada Buuhoodle xarunta gobolka Cayn iyadoo inta badan lagu soo wareejiyay wadooyinka soo gala magaalada waxaana madaxweynaha markii dambe loo galbiyay qasri weyn oo ku yaala magaalada Buuhoodle halkaas oo loogu talagalay inuu dadka kala hadlo. Wararka waxa ka hadlay gudoomiyaha gobolka Cayn Maxamed Xasan Faarax iyo qaar ka mid ah xildhibaano iyo wasiiro ku soo dhaweeyay madaxweynaha magaalada Buuhoodle waxaana halka ugu dambeyntii ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka Puntland Injineer Cabdixakiin Cabdilaahi Xaaji Cumar waxaana uu sheegay inay Buuhoodle u yimaadeen ka qayb galaan xaaladda adag ee gurmadka haatan iyo waliba cudurka shambiyoodka ka dilaacay Buuhoodle inkastoo xalay gobolka ka da'een roobab mihigaani waxaana uu yiri madaxweyne ku-xigeenka oo waliba luqad af Soomaaliya aanan ku sharxi karin ama luqad kaleba soo dhaweynta qiimaha leh ee walaaltinimada leh ee qadarinta leh ee xushmada leh ee la soo dhaweeyay aniga iyo waftiga balaaran ee aan wada soconay oo aan Buuhoodle ku nimi si aan ugu gudbo runtii socdaalkaygii hore waxaan idhi reer Buuhoodle ninka siyaasiga ah su'aal kaliya ha weydiiyo mala fursad uma idaan helin wali su'aasha inaad na weydiisaan laakiin waan ka jawaabayaa su'aashaas oo ahayd war sanadkii hore maxaad qabatay kalimka socdana maxaa sameyn maxaa ku qorshaysan waxaan filayaa reer Buuhoodle inaanay ka daahsoonayn ama ka qarsoonayn wixii Puntland ay u qabatay waxaanu dhagax dhignay wadadii oo 2 kiiloomitir waa dhamaystiray wasaaradda deegaanka waa dhagax dhiray waana dhamaystiray MCH-ki waa dhagax dhignay waana dhamaystiray guriga odayaasha waa dhagax dhignay waana dhamaystiray waxaa ku jiray qodobka shanaad wuxuu ahaa labada iskuul aamin labada qol ee xararanku ay uga codsadeen iyo ceelkii biyaha waxaan u sheegayaa labadii qol inaan dhisnay iyo musqushiisii ceelkiina alxamdulilaahi rabbil caalamiin inuu maanta ka falgalay abaartan qabatay ummadda Soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan gobolka Cayn iyo Woodward waxaan ka xumahay in Woodwardkii hore 2 jeer buu naga xumaaday kan dambe muxuu ahaa survey-gii ugu dambeeyay ee la sameeyay 4 kiiloomitir iyo 4.8 buu u jiraa meesha biyaha laga helay Woodward marka waa Woodward iyo Horfadhi iyo Xamar lagu xid sanadkan waa 3 ceel baa iyaguna ku jira mashaariicda la sameeyay raashin iyo daawo ka yimi 3 hay-adood oo kala jaada runtii alminhaaj iyo hay-ad la yiraahdo Sacuudi weeye ILO waa International Islamic Relief Organization iyo Shaariqa hay-ad la yiraahdo waxa weeyaan waa kun qoys raashinkood 2 iyo badtan oo daawo raashinkaasi yani raashin un baafka laga yiraahdaa waa raashin quality leh runtii oo nafaqaysan haween gawaaridiisii waxaa markhaatiyaalka jananadani daba taagan reer Buuhoodle ku-xigeenka Puntland iyo wasiiro xildhibaano soo booqday gobolka madaxweyne waxaanu ku sheegaynaa in halkan dadkii ay abaaro ku dhaceen xanuunna uu heliyo marka dadkii iyo dalkii haddeeraad timid marka waxaan doonaynaa inaad dadkaaga iyo dalkaaga wixii ay loo sidana aynu u dhiibno wixii kalena aad u dalabto aad iyo aad ugu faraxsanahay laba arrimood marka hore roobka inuu ilaahayna soo qaboojiyey oo dadkii masaakiinta ahaa meel kasta ay joogaanba ilaahay uu roob u keenay midda labaad waxa waaye maanta waxaa caddaatay wax badan baa yidhi Buuhoodle waa Somaliland waa Qaatomo waa Futuud waa Kenya inay Puntland u cadaysato waxaad u jeedaa madaxweyne ku-xigeenkii Puntland
imaashadiisii sidii shacabka reer Buuhoodle iyo reer Caynba ay u soo dhaweeyeen xildhibaanada iyo wasiirada iyo madaxweyne ku-xigeenka imaashadiisii shawayka ku nool gobolka Cayn oo ka kooban maamulka gobolka barasaabka saaradaha suuqayaasha gobolada hooyooyinka dowladweynaha dhalinyarada hooyanka fadhiya ayaa soo gashay waxaan u maleeyaa halkan uma imaan tarxiis uma imaan safar baad u timid iyo gurmadka uu kii koowaad ma aha waxaan u maleynayaa waqti gaaban weeyaan qalbi furan sacad dheerna waa soo gashay meeshaan kaaga wada ogtahay dhammaan bulshada iyadoo isku duwan iyadoo oo baahideeda ay abaarki doonto si toos ah berrina waxa weeye lama bixi goobaha waxa weeye barakacayaasha isbitaalka goobaha waxbarasho وعلى سنة عودة كتير ورقة الفيش كعلمي اسمان نيوز مقالة بوهول